wallaahi xabadii saddexaad anigaa cunay oo ugu tagtay. haddaba ninkii wax ku qaadan waayay wixii mucjiso ahayd ee la tusay. qisada tan waxay dhex martay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo nin yahuudi ah. waxaa safar kalay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam wuxuu soo maray meel waxayna isku arkeen nin reer bani israa'iil oo yahuudi ah. iswaraysi dheer kadib waxay go'aansadeen inay isku lug darsadaan, micnaha inay isla safraan. waxayna isku raaceen in sahayda ay wataan ay isku darsadaan. nabi ciise calayhi salaam wuxuu watay hal kimis, halka yuhuudkuna uu watay 2 xabo oo rooti ah. waxayna sahay ahaan u haystaan 3 kimis ama 3 xabo oo rooti ah. halkaa ayna ka bilaabeen safarkoodii. markii in muddo ah la sii socday ayay go'aansadeen inay xoogaa nastaan. nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaana salaad galay. intii uu salaada ku jiray ayaa kii yahuudiga ahaa naftiisa shaytaan ugu sheekeeyey, wuxuuna ka dhaadhacsiiyey in inta uu salaada ku jiro uu 2 xabo ee kimiska ah ee isaga uu wato uu xabad ka cuno, micnaha 2 rooti oo ninkan yahuudiga ah uu watay. ayuu shaytaankii yiraahday 1 xabo ka cun, hadhowna waxaad dhahdaa 2 xabo oo kaliya ayaan wadanay. wuxuuna cunay 1 xabo oo kimis ah ama 1 xabo oo rooti ah. nabi ciise calayhi salaam wuxuu yahuudkii ku yiri inoo keen raashinka aan cunne. yahuudkii wuxuu soo qaaday 2 xabo oo rooti ah. nabi ciise ayaa yiri aaway xabadii saddexaad. yahuudkii wuxuu dhahay awalba 2 xabo oo kaliya ayaan wadanay oo maba haysan mid saddexaad. nabi ciise wuu iska aamusay, waxaana la sii watay safarkii. muddo markii ay socdeen ayay la kulmeen webi aan laga tilaabi karin, balse nabi ciise mucjiso ayuu lahaa oo alle ayaa wax walba u fududeeyey. waxa uu gacanta qabtay ninkii, waxa uuna ka dilaabiyey webigii. ninkii ayaa yaabay oo dhahay subxaanallah. markaas ayuu dhahay nabi ciise, allihii mucjisadaas ku tusay baan kugu dhaarshee, yaa cunay xabadii saddexaad. markaasuu dhahay maba aynaan wadan oo 2 xabo oo kaliya ayaan wadanay. halkaa ayayna mar kale safarkoodii ka bilaabeen. wax la sii socdayba waxaa la arkay nin aad tacbaan u ah oo xanuun aad u daran hayay. micnaha ninkan wuxuu ahaa nin aad u xanuunsan, daawona waa loo waayay. nabi ciise calayhi salaam ayaa ninkii gacanta marshay, gacantiisa ayuu kor mariyey, uuna u duceeyey. ninkii sidiisii buu ku soo noqday oo wuu caafimaaday. yahuudkii ayaa dhahay subxaanallah. nabi ciise ayaa mar kale dhahay allihii mucjisadaas ku tusay baan kugu dhaarshee, yaa cunay xabadii saddexaad. markaasuu yidhi awalba 2 xabo oo kaliya ayaan wadanay. safarkoodii ayay sii wateen. markii ay in muddo ah socdeen ayay arkeen ugaar ama deero. nabi ciise calayhi salaam isagoo awoodda alle siiyey adeegsanaya ayuu qabtay xabad deera ah, wayna qasheen. markii la cunay hilibkii lagana dharkay intii soo hartay ayuu dhahay nabi ciise oo alle awood u siiyey in wax dhinto uu dhaho kac oo soco. ayaa dhahay deeradii kac oo soco. alle awooddiisa bay aheedee way kacday deeradii wayna oroday. yahuudkii ayaa dhahay subxaanallah. nabi ciise ayaa yidhi allihii awooddaas iyo mucjisadaas ku tusaan kugu dhaarshee, yaa cunay xabadii saddexaad. markaasuu dhahay maba aynaan wadan oo 2 xabo oo kaliya ayaan wadanay. halkii ayay mar kale safarkoodii kasii bilaabeen. markii muddo la socday ayay arkeen 3 dhagax oo dahab ah. markaas ayuu dhahay nabi ciise 3dan dhagax ee dahabka ah, mid aniga iska leh, midna adigaa leh, kan saddexaadna waxaa iska leh ninkii cunay xabadii saddexaad ee rootiga ahayd. yahuudkii oo adduunyo qaaday ayaa dhahay wallaahi xabadii saddexaad anigaa cunay oo ugu tagtay. haddaba ninkii wax ku qaadan waayay wixii mucjiso ahayd ee la tusay. nabi ciise oo aad ula yaabay yahuudka damaciisa ayaa dhahay 3duba qaado. meeshaas ayna ku kala tageen nabi ciise iyo yahuudkii. ninkii yahuudka ahaa ayaa qaadi waayey 3dii dhagax ee dahabka ahayd, wuuna ka tagi waayey. isagoo meeshii taagan ayaa waxaa u yimid 3 nin oo socoto ah. waxayna arkeen ninkan oo adduunyo iska haysto oo qaadi waayey. markaas ayay go'aansadeen inay ninkan dilaan, wayna dileen. dahabkiina way qaateen, waxayna sii wateen safarkoodii. markii in muddo ah la socday ayay kaajoodeen nimankii, waxayna isku raaceen in 3dooda mid ka mid ah uu tuulo cabaar u jirto ka doono cunno iyo biyo ay cunaan cabaanna, 2da kalena ay ilaashaan dahabka. waxaana tagay nin oo tuuladii cunno ka doonay. 3dii nin mid kasta shaydaan baa ugu sheekeeyey, adiga wada qaado hantidan oo idil, kuwa kalena dil. 2dii nin ee ku hartay dahabka waxay go'aan ku gaareen in marka uu cunnada u keeno ninka kale ay dilaan.
dilaan oo iyagu dahabka wada qaataan. balse yuhuudkii kalena inta uu sii socday shaydaan baa ugu sheekeeyey oo dhahay, raggan sumeey, dahabkana adiga wada qaado. wuxuu tagay tuuladii, waxa uuna soo cunay raashin, tii kalena wuxuu ku soo daray sun aad u badan. micnaha raashinkii uu nimankan kale u waday aad ayuu u sumeeyey, si marka ay cunaan ay ugu wada dhintaan ragkan, dahabkana uu isaga wada qaato. waxa uu yimid nimankii isagoo cunadii wadaa, isla markiiba waxay nimankii dileen ninkii cunada u waday. markii ay dileen waa rag gaajeysane, waxay ku qamaameen ama ay cuneen raashinkii sumaysnaa. halkaas ayay iyagiina ku dhinteen. nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa safarkii dib uga soo laabtay, wuxuuna soo maray waddadii. waxa uuna arkay 3 nin oo meyd ah, iyo kii kale oo isna meel aan ka fogeyn yaala oo meyd ah, iyo 3 dahab oo meesha taal. markaas ayuu dhahay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam, adduunyo ehelkeeda sidaas ayay u kashaa.